السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن قيمة بدن عذر كان يحن ku daashaday qalbigaadu ma cubmay caro iyo ciil ma ku noolaatay ma waxaad u malaynaysaa carada iyo ciilkaas kugu jiro ee qofka kale u qabto maalin kasta markuu kugu soo laba noqnoqonayo inuu ajir ku socdo ma waxaad u malaynaysaa qofkaasi inuu habaarkaaga waxaad akhrinayso wax ku dhacayo maanta waxaan rabaa in aan kuu sheego wax ka fiican dhageyso bal intaan anigu kuu sheegin xabiibka ayaa ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam walaalka laba message laba fariin baa kugu socda fariin waxay kaaga imanaysaa xagga shaytaanka iyo naftada kaaga imanaysaa fariin waxay kaaga imanaysaa xagga Allah subhanahu wa ta'ala iyo xabiibka salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi haddaan ku horeeyo fariinta kaaga imanaysaa xagga ilaahi khaaliqi adiga ku abuuray waxa weeyaan ilaahi subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah sida uu yiri Hasan al-Basri idha halat al-umam yawm al-qiyamah markii ummaduhu ay yimaadaan amaam Allah yawm al-qiyamah ee banki qiyaamaha la soo istaago ee la isu yimaado نودي ولا دواقيا مركاسا dadku indhay soo wada taagayaan Hasan al-Basri baale markaasa waxa la leeyahay ninka dhawaaqaya waxa uu leeyahay malka dhawaaqaya waxa uu leeyahay ya ilaahi agtiisa ajir ka sugaya man kaana indahu ajrun ala Allah ilaahi ya ajr kullu oo ka sugaya nin walba qoortu soo taagaya laakiin ajrka heli maayaan illa al-aafuna 'ani an-nas kuba qalbiga furan kuba caloosh xaadan kuba dadka cafiya baa helaya maxaa yeelay ilaahay baa dhahaya faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah qofka iska cafiya dadka qofka dadka iska cafiya afis ma aha kaliyata bal wa aslaha qofkii wax idinka dhaxeeya waa ku cafiye iska baxmaadan ku dhihin markaad cafisay bal calaaqadii baad wanaajisay wajigii baad furtay hadiyad baad u dirtay waad xariirisay habbaad siisay waad karaamaysay waad kolkoolisay waad qiimaysay bal waad u duceysay waxaad tiri hadduu dhintay ilaahayow hebel waa idulmiya ilaahayow jannadaada gee hadduu nool yahayna ilaahayow cimri dheer iyo caafimaad ku arsaaq arrinta aad leedahay laba faa'iida kugu jirta faa'iidada koobaad waxa weeyaan qalbigaada furmaya عقدات باد كفيو بابيسا waxaad ka caafimaayaysaa waxa qalbigaada ka dhax guuxaya xumaana adiga ku baaba'aya adiga ku madoobaanaya adiga ku hoogaya adaa iskula sheekaysanayo ku waalanaya taa horta waad ka fiyoobaanaysaa talabaad shaydaan baad ku dilaysaa maxaa yeelay shaydaanku wuxuu horiyaa xaqdiga wuxuu horiyaa carada wuxuu horiyaa xasadka al-ghadab min ash-shaytaan fariintaas waa fariinta xagga ilaahay kaaga timid amma nabiga calayhi salaatu wasalaam walaalkay dhageyso hooyada aabaha walaalka dadka kuwa kugu dhow isqoonsanaysaan dadka kuwa kugu dhow ayaad kahanaysaa marka qaar dariskaada dugaanka ka soo horjeeda ninka adiinta ka qaatay ka wax kugu leh nabigu wuxuu ka sheekayay nin calayhi salaatu wasalaam xadiiska imaam al-Bukhari uu wariyay min xadiis Abi Hurairah radiyallahu anhu arda nabigu wuxuu ka sheekayay calayhi salaatu wasalaam min rajulan kana qablakum nin waxa jiray dadkii hore ku jiray ilaahay baa malag u soo diray in nafta laga soo qaado malagii markii ninkii uu yimid ayaa malagii baa wuxuu weydiiyay war waxaan ku weydiiyay hal amilta waliga khayr ma samaysay waliga wax ma samaysay markaas ninkii wuxuu yiri may wallahi ma xasuusto malagii baa weydiinaya oo wax ma xasuusta aad samaysay oo yaani malagii baa wuxuu yaabay ninkan wanaag inuu waliga wax ma samaysay wuxuu yiri ma xasuusto bal ma xasuusto markaas ninka markii dambe wuxuu yiri wallahi ana adduunyada markaan joogay aniga markaan adduunyada joogay waxaan ahaan jiray ninkan acsada nin waxaan ahaa dadka ma aragtay wax marka iga qaataan ka aan awoodina waan iska cafin jiray ka awoodana waan u dabcin jiray xilli warbu iska keenay jiray ilaahay subhanahu wa ta'ala nabigu waa ka sheekay ninka wuxuu leeyahay sidaas uu jannada ku galiyay dadka uu iska cafinayo ayuu jannada ku galay walaalkay su'aasha aan ku weydiinay waxa waaye hadii aakhir aad janno ku dambaynayso لأنه قفك حدو أدونك متاعب والبكمرو هدد حوق والبكمرتو النبي هو أسجد الله صلى الله عليه وسلم قفك مركا لك يوم القيامة وحال لكينا يا بأشد الناس دتك أقول لك بدنا أدونك لكينا يا مركاسا فيغمس جنة لك يا غمسة مركاسا الله صوص على مركاسا وحليه ولي لبك وقول دعي مركاسو له لا والله يا رب قط ولي وحده بيقوم مدعين محايا للجنة كاتر تري سو حصل نمبا حديبة الجنة أتقدم بينيس وإلهي كجعلانا يو دتك إسكعف سمحت كتيتيسا أرنت أقوم بسنة كنت المامي اللي قلت بالكذا قالقة حدي إله سبحانه وتعالى كورن قلوب كوسو جيدنا يو كورن هدو إله إسوا كجعلانا يو كورن هدو أمودنا كجعلانا سمع كتك عفسه نبي عليه عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال آد بحصو
صدقة من نقصامس قبص مركهوري وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة إلهي أدون حدودتك عفية ومزيادة وحن عزك أين رفعة إن لقو سريسيو إن هيبد أمده قلوبته هذا لقو قليو إن أمده لن أيكو جعلاته إن أمده لن أيكو قلبي حارناته عفسكا إسكا عفنيسا أيا وحاكو جعلانا يا خلائقت أولا محايري قف قلبي حارن باته ميادا رفع رجينين إلهي وأسقى أمانا يأدهيا الذين ينفقون في السراء والضراء كوبا وحبحية حلقة ay ku jiraan dhibaatada iyo xilliga barwaaqaysan yihiin xilliga ay waxa yar haystaan iyo xilliga ay waxa badan haystaan alladina yunfiquna fi as-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghayz kuba arada damiya wal-'afina 'anil nas kuba dadka iska cafiya wuxuu oran jiray mu'tasim billah ahad umara al-muslimin wuxuu oran jiray لذة العفو ألذ من لذة الانتقام لدنك أتكهليس إن تقف عفسو أيا وحي كدني معان بدن تحي إن عري أركوس أتكجر تمان تدنبا إن تقف إسك عفسو هذا كهر أيا وحالي أحد الملوك مسلمين تكميد بقر مسلمين تكميد أيا أسارو إيو وحبو سوق فاشي دقالك مركي لقالي أيا دطفر بدن أيا قعمي سوق صور داعي markii la keenay ayaa nin kamid culimadu weydiiyay wuxuu ku yiri dadkan maxaan ku sameynaa bal xukumi markaas ninkii sheekh aaba wuxuu ku yiri adiga sad ilaahay jacayl buu ku sameeyo gacanta ku soo galiyay waa soo qafaalatay laakiin adigu sidoo ilaahay jacayl sameeyo iska cafi markaas iska cafi adiga sida aad jecelayd ilaahay waa ku soo bi oo ilaahay gacantaada ku soo wariday ma ahano ha ilaahay wuxuu jecel yahay soo bi adiga oo sameey oo iyagana iska wada cafi markaas kulligood oo dadka qaada waa cafiyo qofka muslimka qofka mu'minka waasi'a sadr waa qof qalbi ballaaran waa qof dadka cafiya habeenkii ma seexda ilaa uu cid kasta iska cafiyo bal uu waliba duco ugu daro walaalkayga sharafta badan walaashayda quruxda badan ka faa'iideyso jaaniskan adduunka inta aad joogto ku biir kooxdaas uu ilaahay yiri wal caafina 'anil naas kuwa dadka iska cafiya wallahu yuhibbul muhsinin muwahhidiinta sifaat kale ilaahay wuu jecel wallahu yuhibbul muhsinin إلهي سبحانه وتعالى وجعلها موحدين صفات كاسو كاله إلهي با سبحانه وتعالى جعل إلهي با سبحانه وتعالى جعل أو عزيني أو وينيني إلهي با سبحانه وتعالى جنة أو بشاريني وحان كسو قبقبين يا أخي الفاضل وحان كسو قبقبين ولا شيء قيمة بدني مال مها الدنيا أتكون وشهي وإيكو بنتحي قف كالسنة واسكو دعي كرتان qofka kugu dhow carab iyo ilka ayaa isqooma dad waxaad arkaysaa maanta dhan ka sheekeynaya qof hal maalin dhibaateeyay qof waxaad arkaysaa ka sheekeynaya qiso yar oo maalin ku dhacday hadda ka hor waxa igu dhacay nin baa i xumeeyay gabadh baa i xumeysay ragga Soomaaliyeed gabdhaha i xumeeyaan dad baa u soo gala live maalin kasta in ay ka sheekayaan ragga Soomaaliyeed waa rag xun gabdhaha Soomaaliyeed waa gabdho xun waxaana la isku sameeyay kana la isku sameeyay cafi lagama sheekaynayo in ummadda la isku soo dhaweey lagama sheekaynayo in maxab iyo jacayl la sameeyo iskuma sheekaynayo in reeraha dib loo dhiso lagama sheekaynayo in la isnaco oo ajaanib la kala raaco oo yaa laga sheekaynayo walaalayaal ummadda isku soo dhaweeya cafiga iyo tasamuxane عفوك يتسامحنا وحلو جارا منازل آذن ملك لكو جارين دب الرع قصوينك إستوريك نيلسون مانديلا أو كلامركي أو جوليستي لما تذكر لما إسقع فيه دب أو نقحب كان عليه الصلاة والسلام مركي مكة أفرتي كل ودع ودع فيه تذكيو لن ودع فيه مارنت النبي عليه الصلاة والسلام مكة أسود الدقي أصو أنت أصوكم منان أو صحابي أو عيدنا وتا هبين كان الصحابة وحال الله نلك إياك افتينك كبحي فيرسود إيشليين مجال waxaad u malaysaa Los Angeles baad u malaysaa waxaad u malaysaa New York oo kale makaad u malaysaa caasimad weyn baad u malaysaa Allahu akbar
allahu akbar boqol iyo intaasoo kun oo saxaabi tobanaan kun oo saxaabi nalkay iyo dabkii ay shidanayeen waxaad u malaysaa magaalo weyn markaasaa midbaa wuxuu yidhi way buu yidhi alyawma yawm almalxama maantay gacan galeen reer maka maantay gacan galeen alyawma yawm almalxama markaas saxaabku calayhi salaatu wasalaam bal yawma yawm almarxama maanta maanta la isku naxariisanayay maanta la argoosanayay ma aha bal yawm almarxama maanta naxariista iyo raxmadda walaalkayga qaaliga diinu tasaamux diinu lcafi buu ilaahay kusoo dejiye cafiga iyo sicatu sadriga ku noolow ilaahay baa isaga dhahay subxaanahu watacaala wafaman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah haddaad doonaysa ajr aan la soo koobin oo ilahay agtiisa kayd kuugu ah عفسك وتدار حياك الله وبياك وجعل الجنة مثواي مثواك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.